Wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta haatanna ka mid ah xubnaha loo doortay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa soo saaray qoraal xasaasi ah oo ku saabsan shirka ka dhacaya Baydhabo ay leeyihiin madaxda siyaasadda ee beelaha Dir, Digil iyo Mirifle. Maareeyaha ayaa shaaca ka qaaday in beelaha Dir, Digil iyo Mirifle ay dhowaan ku heshiiyeen in marka ay dhammaato doorashada socota la xoojiyo isbahaysiga gaarka ah. Sidoo kale wuxuu kashifay qorshaha shirka ay ku leeyihiin Baydhabo, isagoo uu tilmaamay in uu ku saabsan yahay wax ka beddelka awood qaybsiga xilalka dowladda, gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Shirar ay yeesheen madaxda beelaha Dir iyo Digil iyo Mirifle muddooyinka lagu jiro arrimaha doorashooyinka dalka ayaa lagu heshiiyey in marka ay dhammaato doorashada xildhibaanada dowladda federaalk Soomaaliya la xoojiyo isbahaysiga ka dhexeeya labada beelood oo lagu kala magacaabo Digil iyo Mirifle, oo la isugu tago magaalada Baydhabo si looga tashado in wax laga beddelo qaabka 20kii sano ee ugu dambeeyay loo kala qaadanayay xafiisyada waaweyn ee looga taliyo dalka, ayuu qoraalkiisa ku yidhi Xildhibaan Maareeye. Maxamed Muxudiin Abuukar Maxamed Toxab, TV Jowhar, Muqdisho. Like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay